many message. wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda dalka Burundi iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta kala saxiixday heshiis ku aadan xoojinta iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa labada dowladood waxaana munaasabadii heshiiska ay ku kala saxiixdeen labada dhinac goobjoog ka ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Burci Maxamed Xamse iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda dalkaasi Burundi waxaana ay kala saxiixdeen heshiis ku saabsan sidii loo dardargelin lahaa taageerada dowladda Burundi ee Soomaaliya gaar ahaan tababarsiinta ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya kulanka ayaa markii soo ilaaday kadib waxaa saxaafadda uga warbixiyay heshiiska labada dhinac safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Burundi Danjire Abshir Xasan Abshir wuxuu kaloo u booqday gudoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Cusmaan Jawaari ay ka wada hadleen xiriirka iyo labada dhinac iyo labada baarlamaan iyo waxa uu dhaxayn kara inta kadib madaxweynaha ay booqasho ugu tageen wada hadalladii kadib madaxweynuhu wuxuu ku casuumay madaxweynaha Burundi inuu booqasho ku yimaado dhawaan kadibna waxay wada galeen qado waxa lagu heshiiyay waxay ahayd in Burundi ay ka furto halkan safaarad lana sameeyo guddi wada jira ee ka shaqeeya dabagala waxa lagu heshiiyay oo la yiraahdo joint commission oo labada dhinac si kastaba heshiiskan ay maanta kala saxiixdeen wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Burundi ayaa waxa uu qayb ka noqonayaa dardargelinta hawlaha shaqo ee mas'uuliyiinta cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda Soomaaliya Maxamed Bilegele Somsat magaalada Muqdisho